بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية، مدحوينياشا دولدها درس كندا iyo ra'iisul wasaarayaasha gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaasha baarlamaanka labada aqal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ra'iisul wasaarayaashii hore madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa mahad leh allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalkay mudane xasan sheekh maxamuud. madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyaan ku leeyahay waana wax aanu ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ayna noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay. waa guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto. waxaan ognahay in dowlado institutionkooda naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad. guushaan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya, waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud. waa guul sumcaddeenna dowladnimo, waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeena sare u qaaday. macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh. qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay, laakiin waxaan ka barannay qori isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanu ku horumarinayno. waxaa tusaale ah markaan dib u milicsanno qori isku dhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyey waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo, ayadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniga. waxaan u mahadcelinayaa dowladaha lagu garab siiyey dowlad dhiskeena, sida dowladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin admis, horeyna loogu yaqaanay amisom. marna ma ilaawi doonno ciidamada amisom ama admis ee naftooda u huray xubnahooda qaaliga ah ku waayey difaaca dalka. waxaan u mahadcelinaynaa dowladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada loo dhisa in soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto. waxaa kaloo mahad iska leh shacabka soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaada. muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada, ilaaliyo sumcadda dowladdeenna iyo madaxdeenna, oo weliba aan ugu ducayno inuu ilaahay u fududeeyo. waxaa kaloo muhiim ah inaan u mahadcelinno ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dowladnimada una huray naftooda. allaha u naxariisto inta naftooda ku weyday difaaca dalkooda. madaxweyne waan ku garab taagannahay, waana kula shaqaynaynaa. wixii tala aad na weydiisatana diyaar ayaan kula nahay. maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda Soomaaliyeed u hari doona adigana legacy
ku noqon doonto ugu dambayn ummadda Soomaaliyeed waxaan mar kale ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dowladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan u yeero madaxweyne Sheekh Shariif inuu soo joogin karayo وأنا ما أدري إلا مدحوني هوري مدحوني فرماجو وحن جعلها مركن مناسبة أنه قلنا نبكي مرينا إن أنسود دوينو مدحونها تبنات الصومالية مداني حسن شيخ محمود